hay-adda NASA waa hay-ad madax bannaan oo laga leeyahay dalka Mareykanka waxay qaabilsan tahay sahminta iyo socdaalka hawada sare waxay samaysay in ka badan malaayiin cilmi baadhiseed iyagoo inoo soo gudbiya warbixin kasta oo la xidhiidha hawada sare. Mr. Eisenhower ayaa aasaasay sanadkii 1958 isagoo dareynaya wax ka ogaanshiyaha meerayaasha. July 29 ayaa la hirgeliyay NASA iyadoo October 1 si toos ah u bilowday hawsheeda shaqo. ilaa iyo hadda waa hay-adda kaliya ee xog muhiim ka keentay hawada sare. Dowladda Mareykanka dhankeeda dadaal iyo horumar ballaaran waxa ay ugu jirtaa sidii NASA ay u hana qaadi lahayd. NASA waxa ay leedahay golo maamul balse hoostaga madaxweynaha dalka Mareykanka amarada iyo go'aamadana kaliya waxa dejin kara madaxweynaha halka ansixintana laga rabo golaha maamulka. sanadkii 1967 hay'adda NASA waxay la kulantay fadeexad weyn kadib markii dayax gacmeedkii Apollo 1 uu galay shil hawada sare oo ay ku dhinteen 3 erbixiyeen oo xubno muhiim ka ahaa golaha maamulka. dhacdadaasina kadib waxa yareynayay khasaaraha iyo shilalka ay geystaan dayax gacmeedyadu. hay'adda NASA waxay samaysaa duulimaadyo la shaaciyo iyo kuwa qarsoodi ah inkastoo hawlaha NASA ay yihiin kuwa hoostaga aqalka cad ee dalka Mareykanka. socdaalkii Mars iyo Venus ayaa qarsoodi ah inagoo maqalay oo kaliya natiijadii socdaalkaasi balse bilowgii aynan ka haysan xog muhiim ah. hay'adda NASA kuma koobno oo kaliya socdaalka hawada sare balse waxa ay ku lug leedahay aasaaska gantaalka rocketka iyadoo ku tijaabisay meeraha dayaxa sanadkii 1988 waxa ay hirgelisay gantaalka Aegis 15 rocket sanadkii 1968 waxa ay xaqiijisay guulo hor leh oo ay ka mid ahaayeen Gemini, Apollo, Skylab, Soyuz shuttle program dhammaantoodna ay ahaayeen mashaariicdii ugu waaweyneed ee hawada sare. in ka badan 7 dayax gacmeed ayaa ku waxyeeloobay meeraha qorraxda laba kalena waxa lagu waayay hawlgalkaasi balse weli kameyniyay jabin NASA wax ka ogaanshaha iyo cilmi baadhista qorraxda. cirbixiyeennada NASA waxa isticmaalaan oo ay adeegsadaan barnaamijka MMRTG oo loo isticmaalo qiyaasaha iyo masaafooyinka ay degi karaan. laga soo bilaabo sanadkii 2006 NASA waxay xarun rasmi ah ku lahayd dayaxa waana goobta ay ka bilaabaan tagitaanka meerayaasha kale. boqolkiiba 99 ka mid ah kharashaadka ay isticmaasho NASA waxa bixisa dowladda Mareykanka boqolkiiba halka soo harayna waxa bixisa qaybta hawada sare ee UN-ta. shidaalka ay ku shaqeeyaan dayax gacmeedyadu waxa loo yaqaanaa hydrazine waana hadhaaga crude oil-ka ee sunta ah. sidoo kale daawada channelkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto videos iyo documentary ku turjuman afkaaga hooyo.